waxayna daashaday ama dhigteena ka batay ama aynu muddo dheer soo laasimnay maansacurinta gabageeday geeraarka jiiftada masafada guurowga baraamburka heesta iyo badaheeda kale kala duwan jeedinta wax la jeediyo habdhaca iyo hanaan wanaaga xaraf raaca macaansiga muudsashada macnaha ma garatay la muudsadee la ruugo sida loogu muraaqoodo waa duni laga dherigsan yahay waxay kolkaa ila noqotay maruun kadib waliba intii far Soomaalida la qoray ayaan sir talow ma laga yaabaa in maruun dadka Soomaaliyeed suugaantu waa suugaan maanso iyo tiraabay leedahay tix iyo tiraabay leedahay ma dhici kartaa in la isku dayo ama lagu gaadhi karo iyadoo aan la maansoon in tiraab wax lagu gudbin karo macna yeesha la xiiseeyo la daneeyo oo dadka soo jiidan kara to ugu horeysa igu kaliftay inaan qalin iyo waraaq isu qaado oo af Soomaali wax isugu dayo inaan ku qoro taasay ahayd talabaad dadkeena qaalibkiisa ama kuwa qurba joogta ha noqdeen ama kuwa dalkii joogaba ha ahaadeen waxaynu ka wada dheregsanahay mar haddii qoraalkaasi uu laba xansho ka bato xaalkoodu waxa weeyaan alle la cuskayay sida looga maago iyo sida looga daalo iyo sida maartay loo karaahaysto waxay noqotaa marka sida loo rogrogo in dadka indhuhu ku madoobaadaan macnuhuna iyo eriyaduna iskaga yaacayaan kolka waxa soo baxa wax la yiraahdo cari dhamay taalafteedana waxaan ka eegay oo ma ka baaray dhinac ka duwan oo ah mar walba qoraalka aan isku dayo ama aan ku taanbaabo inaan qoraa waa inuu noqdaa mid aan laguna daalin iminkaan idin tusi doonaa waxoogaa baan inoo ka taaban doonaa mid walba intaan in yar ka soo qaato ayaan kaga baxaa iyadoo isleeyahay weli waa loo dhiga taagaya buuggan in horyaal ama inagii unbaa kama duwana labada arrimood buu la xiriiraa aan ta horena ku tilmaamay inaan isku dayo wax macna ku oola oo dadku danaynayo loo qoro oo tiraab loogu qoro talabaadna inuu mar walba urursanaado oo koobnaado si aan looga caajisin iyadii aanan kolkaa su'aashii u baahnayd wada dhigataagayseen furaheedii aad sugayseen ku saabsanayd ma inagu umbaa talow ereyga kansiloon iyo xaguu ka yimi ayaan jecelahay inaan inoo horeysiiyo kuwa yaryar oon halka kan ka aqriyo doono markaan halka ka aqriyo maansada badana waa la isla soo taagaa waa la dareeriyaa oraah baa lagu gudbiyaa dadkuna dhegaysi buu ku maalaa laakiin markay noqoto tiraabta iyadu badana waa la qoraa akhris baa lagaga bogtaa kolkaa waa arkaysan qaabka tabintuna waa kala duwan yahay qaabka dhegaysiga ama wax kororsiguna waa kala duwan yahay oo mar walba waa laba qaab oo kala duwan si aan kolkaa ugu sii dheeraanin iyadoo dadkii aan tilmaamay buugagan tilmaamayba ay barbar fadhiyaan aan dhaqso u galo xabad yar oo aan ka taabto سفر سبق لي مايسان سفر قفك نولشيسو وسفر كلا قول هاي سفر مليون وشيله أي بني آدمي مالون والبقلا أو كلا كانا كلا مانا كلا مدبا كلا ددانا كلا وايوا كلا دور رون أو دريمو كلا دوان قفك كبيرة سفرو أنسكو سعودة لهين أو كلا هيان يهيراد دركسان
kuwa badda loo fuulo kuwa beriga loo raaco kuwa hawada sare la cirjiiro kuwa qaxar iyo kadeed lagala kulmo iyo kuwa reerayn iyo raxmaad laga dheefo waa baadi goob isdaba jooga oo qofku ugu jiro sidoo cuubka iyo cidhiidhiga nolosha uga bixi lahaa oo sareedo la mahadiyo ku gaadhi lahaa dabeecadda qalafsanaanteeda dabaylaheeda danabiyadeeda daacuunkeeda duufaankeeda iyo dadcunkeeda in laga rayo oo guul laga soo hooyo waxa kunjibaar ka adag kan qofku kula jiro naftiisa hawaawigeeda iyo hankeeda waalan sidii loo xakamayn lahaa aniguna maalmahan ayaan ka soo jeestay safaran baryahan isku jiray oo iminka aan dhinac isaga riday oo qoraaladan sheegaya safaran jahalahayn iyo ma inagunba ayaa buugagoodii la soo daabacay oo Ponte Invisible ay soo daabaceen waxa weeyaan daabacaada munaasabada darteed ayaan go'aansaday inaan dib u milicsado wixii aan safarro galay tan iyo hanaqaadkaygii iyo kuwa aan wax ka qorayba dhowrkan gaagaaban ayaan ka soo xulay si inta xiisayn karta ila wadaagto oo lur maalmeedka isku dhadhanka ah ee caajiska badan uga yaran nasato iyo saaka siduu tuulada uga soo jarmaaday wax dhaqaaqila dad iyo xoolatoonna lama u kulmin ban bacaad isku siidaysa ayuu ka dhammaan waayay daal haraad iyo gaajo isagoo bastiisa ayaa dalmar badda guuxeedii u baxay run iyo been kay tahay uu kala garan waayay tii naftiisu jecelaysanaysay ayuu laabta u badiyey markaas ayaa ninkii ildaraa nolol cusubi ku dhalatay uu dardar hor leh iyo labalugoodin bilaabay saaxiibkiisii daba hablaynayay maskaxdiisu ka baxay dhowr saacadood ayuu sidaas ku waday isagoo isla maqan qorraxdii baa daruuri isku jiqsiisay dhulkii baa midab dugula hulaabtay dabayl dhaxan qaba u xambaarsan ayaa dhinaca bariga kaga soo bitaacday haraadka hayay iyo baahida lafaha ka cuskatay ayaa u sii kaday qadhqadhiyada sida ba'an u haleeshay cagajiid ayuu ku soo gaadhay xeebtii dhulka isku siman taagsinka joog dheer ayuu salka dhigtay lugaha soo laabtay gacmahana dul saar badda mawjadeeda iyo cirka cimiladiisa ayaa reen iyo gurxan isugu jiibiyey aad moodid inay ku diganayaan xaaladda uu dalmar ku sugan yahay cirkii tan iyo saaka isdhaaminayay ayaa mar qudha sidii calool dooxantay ku soo furmay hogolo rooba hilaaca walacle iyo onkod qadhar calaynaya ayaa ku wada kulmay intuu rakada fadhiyey calool madhan maskax welwelsan iyo saaxiib lagu tilmaami karo qallad qoolka loo sudhay ayaa u weheliyey gadoodka cirka kaa loosmay sida la fili karo ma qadhqadhin ma kogin sida saaxiibkii bahol yar iskuma xabaalin isagoo ilkahaas la dhacaya ee intuu u bogay u riyaaqay u muraaqooday baaxadda ay dabeecaddu leedahay ayuu ku dhex libnay hugumkeeda aan kala go'a lahayn isaguba miyaanu dabeecadda ka mid ahayn ereyaynu ku bilownay wuxuu ahaa qoraalka waxa ii geeyay waxa ahayd inaynu ku tahambaabno bal mar uun iyadoo aan la maansoon tiraab in lagu gudbin karo hawraar la dhegaysan karo la xiisayn karo haddaa ka marakacdeen waa ku mahadsantihiin